bari bariyaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray nin la oran jiray Calibaaba. Calibaaba wuxuu ahaa mid qoyskiisa la nool, xaaskiisana waxay ahayd mid caqli badan. Calibaaba wuxuu ahaa nin iimaan leh oo noloshiisana aad iyo aad ugu qanacsan. Wuxuu lahaa jiray hal dameer ah. Maalin ayuu soo qaatay dameerkiisa si uu xaawo u soo aruursado. Calibaaba wadada ayuu soo qaaday, asigoo maalintaasi xaabadiisa iska aruursanaya ayuu wuxuu maqlay dhawaq aad u tiro badan. Markaas ayuu yiri, dhawaqan ma ahna mid sahal ah. Wuxuuna bilaabay inuu dameerkiisa geed ku xirto, asigana oo koro geed aad iyo aad u dheer. Geedkaasi ayuu ku dhoontay, wuxuuna ogaay inay meeshan halis badneed oo geedkaasi ugu badbaado waxa ay yihiin. Waxaa imaadeen dad aad iyo aad u tiro badan oo afkana u duuban yahay oona wataan seefaf aad iyo aad u weyn. Wuxuu bilaabay Calibaaba inuu tiriyo dadkii meesha ay fardahooda ku istaagsanayeen. Calibaabana kor ayuu kala socday, wuxuu ahaa mid yaaban. Dadkii waxay ahaayeen dad burcad ah, waxay bilaabeen dahab ay soo dhaceen in ay xareystaan. Calibaabana kor ayuu kala socday asigoo aad u yaaban. Waxaana kooxdaas hogaami jiray nin aad iyo aad u weyn. Ninkaasi oo ahaa hogaamiyahooda wuxuu u soo dhaqaaqay dhagax aad u weyn meel ku aadan yahay. Markaas uu ku yiri, waa burcadkii ay furan. 3 mar ayuu ku celceliyay. ninkiina wuxuu ahaa mid kor kala socda. Markaas ayuu dhagaxii furmay, waxaana soo kor baxay god aad iyo aad u weyn ayaa ka soo baxay. Calibaabana kor ayuu ka socday. Waxay bilaabeen inay dhammaantooda ay ku gurtaan dahabkii ay wateen, woona ku xirmay midkii ugu dambeeyay markuu galay godkii. Calibaabana wuxuu ahaa mid la socda wax meesha ka dhacaya oo maqlaaya asigoo yaaban. Markaas ayuu dhagaxii furmay, dadkiina waa ay ka soo wada baxeen iyagoo wax ay wadin oo dahabkooda meeshii soo dhigtay. burcadkii waxay bilaabeen inay soo wada baxaan. ninkii ugu weynaa ayaa meesha ku sugayay oo ku yiri, haye haddaba waa aan soo baxnay xiran. halkii ayaa dhagaxii ugu xirmay. waxay bilaabeen inay fardahoodii soo qaataan oo meeshiina ay ka soo tagaan. Calibaaba markuu hubsaday in ay soo baxeen ayuu wuxuu bilaabay inuu geedkii ka soo dago oo dhankaasi iyo godkii u soo dhaqaaqo. dhagaxii buu ku yiri, waa burcadkii ay furan oo 3 mar dhahay, asigana waa ay furmeen. markaas ayuu naxay, wuxuu bilaabay inuu godkii soo galo asigoo tartiib u socda. godkii ayuu wuxuu ku arkay lama filaan meel walba dahab daansan yahay. dahabkii ay soo dhaceen ayaa meel walbana daadsanay. Calibaabana wuxuu ahaa mid arintaas la yaabay. markuu arkay dahabka meeshaas daadsan ayuu wuxuu ahaa nin iimaan leh. meelaha ayuu iska eegay, wuxuu bilaabay intuu soo qaada kari inuu soo qaato oona soo baxo godkii. asigoo aad iyo aad u daalan ayuu soo baxay. markaas ayuu wuxuu ku yiri, waa burcadkii, waa ina baxeen ay xiran. godkii ayaa bilaabay inuu ku daboolmo, wuxuuna soo qaatay asigana intii uu soo qaada kari. dameerkiisa ayuu soo saartay, wuuna soo baxay. Calibaaba xaafadiisa ayuu imaaday. xaafadiisa ayuu keensaday dahabkii. xaaskiisa ayaa la yaabtay dahabka oo wado. markaasi ayay fajacday oo ku tiri, halkaan waxaanoo dhan intee ay ka keentay. markaasi ibuu ku yiri, halkaasi halkaas ayaa ka keenay. wuxuu u sheegay dhacdadii dhex martay. markaasi ay waxay bilowday inay saxan weyn ku shubto ay ku dhahdo, waa dahab aad iyo aad u tiro badan. markaasi ayuu ku yiri, waa run, waa dahab aad u tiro badan, laakiin dariska ha u sheegin. markaasi ayuu ku tiri, aniga ma ihi qof khiyaano badan ee waana aamin galaa. markaasi ayuu ku yiri, waxaan rabnaa inaan dahabkan cabirno, ninka dariskeena u tag inuu u soo qaad garaafa aan ku cabirano. aniga ma haysane, waxaana u sheegtaa inaan wax ku cabiranayno badar oo kaliya ee ha u sheegin inaan dahab ku cabiranayno. haye ayuu ku tiri, wayna soo baxday. ninkii ayuu u imaaday, wuxuu ku tiri, waxaan rabnaa inaan badar ku cabirano ee garaafa yarna sii. markaas ayuu fikiray oo ku yiri, sidaas miya? haye waa aan ku siinayaa iisug. markaas ayuu ku tiri, aad ayaa u mahadsan tahay, si dhaqsi ayaa kugu soo celinaysay. ninkii wuxuu bilaabay inuu fikiro. garaafadii ayuu wuxuu mariyay koollo si uu u ogaado waxa ay ku cabiranayaan. naagtii ayuuna u soo dhiibay, waa inuu mahad celisay oo guriga ayay la imaaday. waxay bilaabeen dahabkii inay ku cabiraan inta ay rabeen ay ka baxsadaan, ayna god ku qodaan, ay guriga ku dhex qotaan, ayna ku duugaan. Calibaaba iyo islaantiisa waxay ahaayeen qof caqli badan. Calibaaba islaantiisa
waxay bilowday inay garaafadii si dhaqsiyaal badan ugu geyso ninkii ay ka soo qaaday. Ninkiina wuxuu ka danacsanay qorsho oo kooladii oo ku dhagsaday weliba ay ku dhagsaneedeen oo qorshihiisa maysan fashilmin. Wuxuu bilaabay inuu guriga la imaado oo fiiriyo. Wuxuu arkay inay tahay waxay cabirayeen dahab ay boontooda tahay inay raashin ku cabiranayeen. Waxaa la gaaray habeenkii. Ninkaas habeenkaas ma oo seexan. Wuxuu ka fikirayay sida uu yeelayo iyo dahabkaasi sidoo ku soo doono. Maalintii ayuu wuxuu u imaaday Ali Baba oo u sheegay arintii uu sameeyay. Markaas ayuu ku yiri hadii kale arintan waa anfaafi doonaa. Ii sheeg hadii kale meesha aad ka keentay dahabkan oo ii sheeg mise wax iyo sii. Ayuu ku Ali Baba uu naxay. Markaas ayuu ku yiri saaxiib waa ku sheegayaa laakiin balan iga qaad inaa sheegi doonin hadii aan ku sheego meel ka keenay. Markaas ayuu ku yiri ma ku sheegi dooni hadaad ii sheegtid. Asxaabay sheekadani waxa uu sameyn doonaa part 2. hadii aad ka heshiin sheekada commentigeeda waa inoo muhiim. halkaan hadii noo soo gaartay aad sheekada like noo saarin please sheekada like inoo saara. partigeeda labaad insha Allah waan soo gali doonaa ee sheekadani geeda meel dheer hay noo loo gaarsiiyo. Ahsanidin.